السلام عليكم kulanti wanaagsan kusoo dhawow muuqaalkii lixaad oo ka mid ah casharadii bilowga Photoshop-ka loogu talagalay dadka aasaaska ah waxa muhiim ah in aad maxaan ku rahdaay maskaxda ku haysid ama aad ogtahay in marka Photoshop la joogo programka ama software Photoshop uu furi karo maxaan ku rahdaay wax loo yaqaan formaatyo kala duwan ama maxaan ku rahdaay faylal extension code ama waxa type-ka ay yihiin kala duwan yihiin Photoshop furi karo isla markaana uu awood ku siin karo inaad ku edit gareysan kartid marka faylal kala duwan oo base ahaan markoodii hore kala nooc ahaa muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa common file typeska ama faylasha guud sida caadiga ah la isticmaalo inta badan isla markaana Photoshop-ka lagu furi karo haddaad u baahan tahayna wax looga bedeli karo marka si aan u bilowno waxaan tegaynaa folderkeennii documentigiisa waxaan kasii dooran doonaa introductionka waxaad ka dooranaysaa folderka ay ku jiraan ama ku qoran tahay common file types markaad furtid waxa kusoo bixi doonaa ama maxaan ku rahdaay ku muuqanaya shanta file halka kaaga muuqda shanta file waa shan nooc ama shan maxaa extension oo kala duwan bay kala yihiin tusaale ahaan waxa u horeeya BSD oo ah oo loo sugabiyay Photoshop document wax ku xiga JPEG ama JPEG wax loo yaqaano wax ku xiga PDF oo portable document format ah wax ku xiga PNG oo isaguna wuxuu yahay format loo isticmaalo in sawirada lagu safgarayo loo soo gaabiyay portable network graphics waxa ku xiga isagana TIFF oo isaguna la mid ah maxaa la dokumentiyadaas oo qaab wax loo kaydsado ama wax loo safgarayo faylasha extensionkiisa ama noociisa ka dhigi kartid oo faa'iidooyin gaar ah leh aan arki doono marka si aan hore uga galno waxaan baahnaa horta inaan furno documentiga koowaad noo ka horeeya faylasheena si aad u furtid marka kali waa siinaysaa Photoshop-ka caadi ku soo kacaya faylka marka uu soo kaco dabcan documentigan waa BSD oo BSD wuxuu ka dhigayaa inuu yahay native Photoshop ama Photoshop-kii caadiga ahaa layerskiisii iyo wixii aan documentiga markii hore u safgaraysay kulli waa ku haya haddaad u baahan tahay inaad wax ka bedeli kartid halkaas caadi u kliksin kartaa maxaa ku dhahay layerkaad rabtid waa dooran kartaa oo sidii aad markii hore aad u safgaraysato layeradaadii waxaaga dhub ku haya maxaan ku rahdaay waana Photoshop oo mar walba aad u baahatay wax ka bedelto waa soo furan kartaa documenti ahaanna waa ku safgaraysan kartaa oo faylkii uu kugu jiraya marka Photoshop waxyaalo aan ku yahay waxa kamid ah faylkii Photoshop-ka ahaa aad Photoshop ahaan u safgaraysay sida caadiga photo viewer-ka ama maxaan ku dhahay Windows-ku wuxuu leeyahay tusaale kan JPEG ka furo wuxuu ku soo furmayaa photo viewer-ka Windows photo viewer-ka caadi uu soo furmayaa laakiin Photoshop ka markaad joogtid waa xiran yahay oo ilaa aad Photoshop ku furtid maaha kuma furmayo marka waxyaalaha ay u gaarka leeyahay bay kamid tahay inaad faylkaas Photoshop ahaan qura aad ku furi kartid laakiin faylasha kale qaar intooda badan lagu furi karo photo viewer-ka iyaguna ay leeyihiin cilado kale waa arkaynaa marka faylka BSD-ga ah extensionkiisu waa BSD waana Photoshop mar waxaan u safgaraynaysaa marka horta inoo soo fur oo safgaraynaysaa file markaad soo furtid faylka documentiga ayaa dhamaystid waxaan ku dhahay qoraaladii iyo wixii informationka ku xiriirsatid wax u safgaraynaysaa marka halkan waxaad magaciisa gelisid waxaad gelinaysaa markaas wax ka dooranaysaa Photoshop ama BSD then ba waxaad taabanaysaa save saas kugu safgaraysmaya markaas saasuna wax kugu noqonaya wax loo yaqaanay Photoshop qaabkaas u safgaraynaysaa kan naga xir marka haddii aan soo furno faylka ku xiga oo isagana wax loo yaqaan example koowaad kan example 0 buu ahaa example koowaad isagana wuxuu yahay waa JPG ama JPG isagu wuxuu leeyahay maxaan ku dhahay faa'iidooyin gaar ah iyo khasaaro gaar inta wali marka JPG waa faylka caadiga ama image-ka nooca boqolkiiba 90 image-yada digital ahaan u aragtid ama internet-ka ku jira ama maxaan ku rahdaay
ku jira maxaa ku rahday kombiyuutarada meel walba lagu shubo ama kaamirooyinka wax lagu qaado ay u save gareeyaan ay ka dhigaan noociisa sawirada. tusaale hadda mobilkaaga sawir ku qaado JPG buu ka dhigaya, haddaad kaamiro ku qaado JPG buu ka dhigaysaa, haddii aad maxaa ku rahday screenshot qaadid sometimes PNG way ka dhigtaa laakiin JPG way samayn kartaa iyadana. marka JPG waxa weeye image formatka ugu caansan ama sida guud loo isticmaalo commonka intooda badan 90% sawirada jiraba ama waxa digital ahaan u jira ay ku samaysan yihiin. marka haddaan file-kan furo marka aad click siisid wuxuu kugu furmayaa window photo viewer wuxuu awood ku siinaya inaad sawirada ku furatid ama wixii allaale wixii sawira oo ah JPG ama PNG uu ku furo sida caadiga. marka marka horeysa click siisid baa wuxuu furayaa maxaa ku rahday window photo viewer hadiisan default kuugu ahayn oo Photoshop aysan kuugu furmin mar walba. marka hadiisan default kuugu waxaa samaynaysaa right click waa siinaysaa si manual ahaan u furaysaa open with baa leedahay markaas waxaad ku doonaysaa Adobe Photoshop qaabkaas kuu soo furmaya. file-ka waa inoo soo furmay extension-kiisuna wuxuu yahay ama noociisu wuxuu yahay type-kiisa waa JPG. JPG wuxuu ka dhigan yahay file sawira laakiin falaatana wuxuu ka dhigan yahay waa isku dhigan yahay. halkaa waxaa inoo saaran caleen kale background baa ku jira wixii oo dhan waa isku wada background. fiir halka u fiirso waxaan la socdaa log baa saaran. logga saaran wuxuu ka dhigan yahay background-ka magaca ku qoran labadu waxay ku tusayaan inuu file-kan yahay one layer waxa ka dhiganaa waxay tahay file-ka type-kiisa aan u save gareyna markii hore oo wuxuu ahaa JPG. hadduu layer badan leeyahay ama maxaa ku markii hore oo Photoshop ku sameeyay caleemahan iyo waxaana soo gelinaysa hadduu layer lahaa oo inta ka badan then au save gareysay JPG ahaan ama JPEG wuxuu noqonayaa mar walba wuxuu noqonayaa flatna layeradaadii waa weynaysa laakiin wuxuu ku soo taganayaa si inuu maxaa ku rahday file-kaagii uu ku muuqan karo photo viewer-kaasi caadi ku furmi karo oo mobilka ku shuban karto oo maxaa ku rahday socialka la share gareyn karto waxyaalo badan oo faa'iidooyin badan buu leeyahay laakiin ciladu leeyahay wax tahay layerskaaga waa ku deynaya. layerskana waxa u baahan dad qofkii Photoshop isticmaala familiar la ku shaqeysta layers very important u yihiin laakiin dadka kale maxaa ku rahday sawirada iyagu caadi ahaan u baahan koodaas oo muhiimsan oo kaasa common oo kaasa isticmaalaano 90% ay isticmaalaan. marka aad save gareynaysid marka aan JPG u baahnaa inaan ka dhigno file-keen iyo layeradeenu tusaale ahaan noo samaysan yihiin sida caadiga isagana waxaad tegaynaa sidii hore file then save as waxaa ka dooranaysaa meeshan unbaa kala bedelaysa halkaas unbaa ka dooranaysaa JPEG meelaha waxaa ka leedaysaa JPG halkaas waxaa ka dooranaysaa kan lama rabo 2000 waxaa dooranaysaa ka JPEG ay qoran tahay JPEG intaas JPE inta waa isaga marka waxaad doonaysaa JPEG qortaad dooratid waxaa leedahay save qaabkaas oo save gareynaysaa kii hore meesha ku jiray macnaheedu save garee. marka save gareysid qaabkaas kugu soo baxaya file-kiina wuxuu ku noqonayaa mar walba flatten one layer ka samaysan oo photo viewer-ka si caadi ah ugu furmaya kaana ka xir. file-ka ku sii xiga ama example-ka labaad example-ka saddexaad waa example 2 example 0 aan soo bilownay example 2 waa PDF waa portable document format waa documentiga ay ku samaysan yihiin PDF-yada caadiga ah taqaanido dokumentiyada maxaa ku dhahday emailada lagu dirsado maxaa ku dhahday buugaagta boqolkiiba maxaa ku dhahday intooda badan lagu save gareeyo si aysan maxaa ku dhahday qoraalkii wax looga bedelin loo edit gareyn. marka PDF in Photoshop marka joogtid uu ka duwan yahay waayo kaas tusaale ahaan Word ahaan marka joogtay hadaad PDF usoo save gareysatay ama usoo bedeshay dabcan PDF-kii wuxuu leeyahay just PDF aan buu haynayo wax laga bedel karo laakiin Photoshop markaad joogtid uu ka duwan yahay sidaas waan arki doonaa sababta uu ka duwan yahay. haddaan furo ka soo qaadsan click haddaan siiyo wuxuu kugu furmayaa reader-kii caadiga ama PDF reader-kii kugu furmayaa file-kaaga. file-ka markuu PDF ku furmayo dabcan wuxuu kaaga dhigan yahay halkaa ka karagtan PDF compatible leeyahay oo PDF-kii ku furmaya isagii tabkiisu PDF yahay. haddaan Photoshop ku furo marka Photoshop markaan ku furayo si manual aan furaya maadaama uu default u yahay right click waan siinayaa open with baan dhahayaa then Photoshop waxaan ka doonayaa default buu rabaa Soomaa marka default kama dhigayo wayga waa computerku hadhow mar walba waxay iga furay PDF soo caadi waan drag gareynaya waan soo dhigayna
markaan soo dhex dhigno waa faylkeeni halka ka fiiri waa pdf pdf markaa furtid halkan fiiri marka layradii markii hore faylka caadiga ku joogaan tufaaxii caleentii maxaa kale caleemihii iyo wixii oo dhan oo meesha inoo ku jiray sidii layradii caadiga ahaa oo caleemihii labadii caleen iyo maxaan ku rahday backgroundkii iyo waxaasoo dhan layradu inoo haya marka halka waxaa garan kartaa faylkan awalan markiisii hore in photoshop ahaan laga soo save gareeyo pdf laga dhigay haddii uu ahaan lahaa ka waran hadduusan ahayn ka waran ay documenti ka yimi ama word laga soo save gareeyay ama meel kale laga keenay email lagu soo diro fayl caadiya uu yahay maxaan ku rahday ka waran maxaan ku pdf caadiya tusaale ahaan pdf halka inoo yaal buga tetiskan soo qaadaya tusaale ahaan soo drag gareey photoshop dhexda waxaa lagu weydiinayaa markii uusan yahay uusan ahayn maxaan ku mid photoshop lagu save gareeyay waxaa lagu salaamayaa meesha un maxaan ku dhahay boxkaas wuxuu ku weydiinayaa su'aalo kooban kow horta waxa lagu sameeyaa bahalkan widthkiisa ma inta ka dhigaysaa maxaa ku resolutionkiisa ma inta ka dhigaysaa ma waxa rabtaa pageska oo dhammaystiran mise waxa rabtaa imageka meesha ku jira inay ku soo muuqdaan choice baa lagu siinayaa noocaad rabtid ama adaa ka dhigan kara cabirka rabtid wax rabtaa ka dhigan kartaa marka su'aalahaas weydiinaya tusaale ahaan haddaan ka dhigo 100 haddaan resolution ka dhigo kana doorto tusaale ahaan pagekaas oo kale then ama kan oo kale ama tusaale ahaan kan oo kale aan doortay then okay baan wuxuu ii soo saaraya marka pagekii oo transparency hadduusan markiisii hore sawir ahayn qoraal uu la socday inta sawirkaan sawirka caadi u saarin kana wuxuu ka dhigayaa transparent saas wuxuu ku weydiinayaa boxka yarka ah hadaad wax ka bedelaysid inta markuusan asalkiisu ahayn maxaan ku rahday pdf markiisa asalkiisu ahayn baan ka wada photoshop su'aalahaas ku weydiinaya haddii uu photoshop yahayna sideenii caadiga ahayd oo kale waxaan tegaynaa meeshani keen caadiga noo soo fur hadduusan photoshop ahayn waxa kuma weydiinaya caadi u furmaya layirada inoo ku tusaya marka qaabka loo save gareynaya isagana file baad tegaysaa save as baad leedahay kadib waxaad ka doonaysaa meelaha fiirsa photoshop pdf photoshop pdf ana waa pdf photoshop laakiin pdf hadhow ku furmaya documenti ahaan loo isticmaali karo laakiin ma yahay background ka photoshop oo layerskii wixii hadhow ku hayn darista qaabka soo save gareynaysaa kan laga cross marka waxa ku xiga file-kana ku xiga wixii png extensionkiisu waa png waa portable network graphics loo soo kaabiyo example-ka afraad weeye soo fur isagana photoshop aad u soo dhexkeen marka soo furtid marka png wuxuu leeyahay awood aysan kuwa kale lahayn awooddaasi waxay tahay inuu qaadi karo data ama maxaan ku rahday documenti ka kooban transparent aan lahayn background inuu qaadi karo tusaalahaan jpg uu caddaa pdf-kii maxaan ku rahday photoshop-kiina wuu lahaa laakiin kan wuxuu leeyahay isagoo one layer ah inuu awood u leeyahay inuu qaado maxaan ku dhahay data background-ka transparent yahay ama maxaan ku rahday meel bannaan yeelan karta tusaale ahaan hadda halkan waxayna ku muuqataa waa labadii caleemood qurun baa saaran caleentaas iyo taas labadaas unba wuxuu inoo waxay saaran tahay documenti intaa kale waa bannaanta waa transparent waxay tahay waan soo aragnay dabcan muuqaalkii hore haddaadan daawan inaad soo daawato waa muhiim si aad u fahantayd transparent wuxuu yahay wax lagu garto waxaan ku garanaysaa grid-ka maxaan ku dhahay square-radaas dhaafsan oo gray iyo cadaanka isku dhex jira hadday ku muuqato wax ku garan kartaa waa transparent wuxuu ka dhigan yahay meel bannaan oo nothing zero waxba oo leh marka faylkeenaas wuxuu ka kooban yahay labada caleemood only ku garan karnaa faylkii intaas ka kooban yahay inta kale isla documentigii ah laakiin waa faro qaabka u save gareynayna waxaa file baan tegaynaa isla sidii save as meeshaan wax ka dooranaa mar walba waxaad bedelaysaa formatka aad u save gareynaysaa bedelaysaa waxa png baa ka dooranaysaa qaabkaas u save gareynaysaa waa kan png ka dooratid oo save gareynaysaa wax yar marka fiiri halkan sawirkan jpeg haddaan furo photoshop furo haddaan click siiyo photo viewer ii soo furo halka iga muuqda labada calaamad iyo background buuta ka war haddaan png ga furo marka soo background ma lahayn soo ma click si labada calaamad bay muuqdaan laakiin background-kii ma laha haddaan xag u wareego waa jpeg laakiin background-ku leeyahay soo jeed kan ma laha laakiin just waa labada calaamad unbaa ii muuqda ee ciwaankaas ugu talagalay tutorialka waa karta png na waa kaas haddaan furo ka waran
faylka u dambeeya ee tif soo furay. tif faa'iidooyin badan buu leeyahay. tif wuxuu horta ku haynayaa layerskaaga oo dhammaystiran, waxaa ka bedeli kartaa, dib u saf garaysan kartaa, maxaan ku rahday wax kastana maxaan ku rahday waa ku haya sidiisa kugu haynayaa. haddaad wax ka bedeshid saas ku leeyahay kugu hayn karaa. qaabka u saf garaynaysidna waxa weeye fayl baad tegaysaa, save as baa leedahay, then halka u hooseysa baa ka doonaysaa tif, saas ku dooratay, saas ku saf garaysanaysaa. mar walba aad faylka formatkiisa bedelaysid halkaas unbaa bedelaysaa, boxkaas furaysaa bedelaysaa, qaabkaas u saf garaynaysaa. wuxuu kaloo faa'iido leeyahay tifku isagoo layerskii ku haya wax kugu furmaya photo viewer, halkaasna waa ka arki kartaa documentka ay ka kooban yahay isagoo banaanka jiro waan furan waa arki kartaa. qaabkaas marka tifku u shaqeeyaa inuu layeradan ku hayo photo viewerkana kugu furmi karo, laakiin hal cilad buu leeyahay. ciladiisa waxay tahay wuu ka cuslaanaya faylashan kale, xogaa uu ka yar culus yahay marka loo fiiriyo data ahaan hard disk intuu ka qaadanayo wuu ka cuslaanaya. waayo kan PNG haddaan fiirino waa 120 megabyte meesha hoos fiiri, laakiin isagu intee weeye waa 5 megabytes halkaas kaaga muuqato marka inuu ka culus yahay oo maxaa la dhahday uu leeyahay halka cilado faylkii space ka qaadan lahaa kan PNG ama kan PDF ka ama kan Photoshop ka kana ka cuslaanay. qaabkaasuna tifku u shaqeeyo layeradu ku haynaya photo viewer ugu furmaya. qaabka u saf garaynaysidna waa meesha formatkum baa bedelaysaa, inta fayl tagtid tif baa ka dooranaysaa, qaabkaas loo saf garayaa uuna u shaqeeyaa wax la yiraahdo tifku. marka Photoshop intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa maxaa la dhahay hordhici yarka aan kaga hadlaynay maxaa la dhahay common file typeska ama faylasha sida guud loo isticmaalay Photoshopkana lagu furi karo. waxaan ku raahdaa u baahatid inaad wax ka bedeshidna qaybtood ay layers ku hayn karaan, qaybna ay faylkaaga flat ka dhigi karaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waa muhiim inuu qofku fahamsan yahay typeska iyo qaabkay u kala shaqeeyaan, waayo markuu qofku faylka saf garaysanayo waa inuu dooran karaa waxa uu isagu u baahan yahay ama resultiga u soo baxaysa aakhirka markuu faylka saf garayo. marka intaasaan kusoo gabagabeynayna muuqaalka xiga waxaan kaga hadli doonaa basic shortcutska ama keyboard shortcutka basic ah oo muhiim tahay qofka asaasiga inuu sida caadiga ah maxaa la base ahaan markuu joogo u fahmo. waa inoo iyo kulanti dambe.